waxaa maanta shir iskugu yimid labada xisbi mucaarid ee ucud iyo wadani hogaankooda sare kaas oo ka qabsoomay xarunta dhexe ee xisbiga mucaaridka ee wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana labada xisbi halkaas ay ka soo saareen war-saxaafadeed ay ku saxeexan yihiin isla markaana ay ka gaareen arrimaha doorashooyinka waxaana war-saxaafadeedku u dhignaa sidan shir ay maanta oo taariikhdu tahay 8 bishii 2019 ay iskugu yimaadeen labada xisbi mucaarid ee ucud iyo wadani hogaankooda sare waxa ay ku lafagureen kagana arisadeen sidii loo sii amba qaadi lahaa loona sii xoojin lahaa qabsoomida doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka sidaas darteed iyagoo ka jawaabaya warqadii madaxweynaha ee ku taariikhsneed 29 bishii August 2019 isla markaana tixgelinaya heshiiskii saddexda xisbi qaran ay gaareen 27 July 2019 waxa isla qaateen labada xisbi mucaarid in la magacaabo labada xubnood ee cusub ee xisbiyada mucaaridka ku matali doona komishinka cusub ee doorashooyinka ee bedelaya komishinka waqtigiisu dhamaanayo si arrintaasi ay wadada ugu xaadho doorashooyin xor iyo xalaal ah oo waqtigoodii qabsooma iyadoo oo mas'uuliyadda guud ee doorashooyinka madaxweynaha saaran tahay waxa labada xisbi mucaarid ee ucud iyo wadani soo jeedinayaan in si wadajir ah looga shaqeeyo lagana qaado wixii caqabad ah ee ka hor imanaya doorashooyinka ee ay ugu horeeyaan saami qaybsiga meelmarinta xeerka doorashooyinka iyo diyaarinta dhaqaalaha doorashada ku baxaya Allah mahad leh waxaana war-saxaafadeedkan ku saxeexnaa gudoomiyaasha labada xisbi mucaarid ee ucud iyo wadani heshiiskan ay maanta gaareen xisbiyada mucaaridka ee ucud iyo wadani ayaa waxay si rasmi ah u soo afjari doontaa khilaafkii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka kaas oo ay xisbiyadu mucaaridku hore ugu baaqeen in wax ka bedel lagu sameeyo qaabka doorashooyinka lagana dhigo 9 xubnood balse taas ayaa u muuqata in ay xisbiyadu mucaaridku ay aqbaleen in komishinka doorashooyinku ay ahaadaan 7 xubnood